السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii diinta iyo nolosha. barnaamijkeennii diinta iyo nolosha waad nooga barateen habeen walba oo jimcaha sabtina soo galayso iyo habeen walba sabtiya axadina soo galayso inaan idin soo marino hawada telefishinka New Africa TV xaruntiisa magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. barnaamijkeena diinta iyo nolosha waa barnaamij diiniya oo aan su'aalo ku weydiino sheekheena Sheekh Abdul Fattah Maxamed Barkhalle. barnaamijkeena caawa hadii Allah subhanahu wa ta'ala uu qadaro waxaanu wax badan ee kaga ogaan doonaa nuugmada ilmuhu uu hooyadii nuugayo iyo dhibaatada uu qofka muslimka ah walaalkiisa kale ee muslimka uu u geysto iyo su'aalo kale oo bulshadeena iyo mujtamaca ku xiran TV-ga ay nala soo wadaageen si aan ugu weydiino sheekha. inteena barnaamijkeena guda galin daawadayaal aan soo dhaweyna marka koowaad sheekheena Sheekh Abdul Fattah ku soo dhawow barnaamijka New Africa TV. barakallahu fiikum jazakumullahu khayr. jazakallahu khayr al-jazaa. Sheekh miisaanka xasanaadka Allah subhanahu wa ta'ala ha ku saaro. daawadayaal inta barnaamijka ku dhex jirno wax su'aalo oo aad rabtaan sheekha inaa weydiisaan haday jiraan waxaad nagula soo wadaagi kartaan nambarada shaashada ka soo bixi doona ama waxaad noo soo dhigi doontaan barta aan ku leenahay Facebook-ga ama YouTube-ka ama qaybaha kale ee bulshadu ku wada xiriidho. su'aasheena koowaad caawa sheekh maadaama su'aalaheenu ay ku saabsan yihiin nuugmada marka koowaad nuugmada iyo yani macluumaad nuugmada ku saabsan hadaan isku dayno inaan bulshada la wadaagno maxay tahay waxyaalaha ay rabaan inay bulshadu ka faa'iidaan ama ay ka ogaadaan nuugmada. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. nuugmada run ahaantii marka koobaad saan wada garanayno waa mucjizo rabbaaniya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay khaaliqnimadiisa lagu garanayo oo qof kasta uu ilaahay jalla sha'nuhu addoonnimadiisa uu ku garanayo maxaa yeelay qofku marka uu dhasho isagoon waxba garanaynin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u hibeynayaa garasho uu ku garto inuu naaska hooyadii qabsado. marka min huna ayaa qofkii nolosha wuxuu ka bilaabayaa inuu maaragtay markii oohinta iyo qaylada laga yimaado inuu naaska hooyadii garto haddana uu isla markaana uu hooyadii caano ka raadsado. ومن ثم qodobka kale ee xiga wuxuu yahay isagana laga fahmayo haddii waalidkii ay isla gartaan ay ku heshiiyaan ayadna waxaa la sheegay in uu nuugmadii ay ilmihii numuwi ka helayo numuwigaas oo dhowr qaybood iskugu jira. kow numuwi jasadiga oo ilmihii uu ku barbaarayaa barbaaritaan uusan wax kale ka helaynin isla markaana waxaa ayadna laga helaa numuwi maaragtay barbaaritaan dhanka caafimaadka ah haddii wax kasta oo kale ilmihii la siiyo wax la dhigmi kara naaskii hooyada ma jiro. qodobka ugu dambeeya xataa sida aathaarta kusoo aroortay iyadana waxaa laga fahmayaa xataa ilmuhu nuugmada inuu caqli uga kordho oo markasta oo hooyada bal abcad min dalika iyo xataa faxalka waxa la dhaho oo cidii irmaaneysaya oo mesela ilmaha aabihii oo kale inta badan noqota ayadana halka caqli baa ka soo baxa ayaa la yiri oo ilmihii caqli ayuu dheeriya ayuu ka helaa nuugmada. aathaartu way sugtay cilmiyan hadda maaragtay waa la sugay intaas oo dhan qur-aanku adiga arkayoo meelo fara badan ayuu ku xusay inuu waalidku ama hooyadu ay nuujiso ilmaheeda walwaalidaatu yurducna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca. 2 sano inuu xataa la nuujiyo ilmihii ayaa la isku irshaadiyey ficlan ma aha waajib oo la isma amrayo oo qasab ma aha laakiin sidaa ayaa wanaagsan haddii sidaa la garto oo lagu heshiiyo. bimacnaa marka ilmihii marka intaasoo fawaa'id ayaa ugu jirta. mararka qaar marka waxaa dhacda ilmihii haddii hooyadiisii umushay ay nuujiso wax axkaam oo kaleeto looma baahdo laakiin mararka qaar waxaa dhici karta inay hooyadii dhashay ee caano la-aan noqoto oo kadibna loo baahdo inay hooyo kale nuujiso ama qaraaba ha noqoto ama berigii hore carabta oo kaleeto waa la kiraysan jiray oo lacag baa lagu bixin jiray hooyo kaloo maaragtay irmaan oo ilmo kale dhashay ama ha haysato ama ilmihi ha ka dhinto kolba see tahayba ayaa ilmaha nuujin jirtay. waxaa kaloo idna dhici karta inay hooyadii ay taadiba noqoto oo umu raacdo ay geeriyooto kadibna lagu qasbanaado ilmihii inay hooyo kale ay nuujiso. mid keenta oo markaa ilmuhu uu markaa u gudbo xaafad kale oo hooyadiisii dhashay aan ahayn inay nuujiso ayay axkaami ka dhalataa
waxaa kale oo dhacda ayadana hablaha walaalaha ah ama ilma adeerka ah ama isku xaafada degan qaraabada ah inay isku mar umula ayaguna inay mid ilmaha kaga tagto ama duruuf shaqa ha hayso ama barkii reebaadiyaha la ahaan jiray maaragtay biyo meel fog ha u doonto dhaan ha doonto wax keena markaa waxaa dhici karta inay hooyadii ilmaha kale lagaga tegay ay ku qasbanaato inay ilmihii martida u ahaa ee lagaga tegay ay naaska ku duudo intaasoo awjuhu kaga bixi karaa marka ilmuhu maaragtay hooyadii nuujinaysay oo loogu baahan karaa inay cid kale nuujiso tan caqliga oo kale tan ka hadlayno numuwi caqliga ayuu ilmuhu ka helaa nuugmada xataa athar baa jira maaragtay dhahaya rasuulka caleyhi afdal wasalaatu atama tasliim kastoo sanadkiisa wax laga sheego laa tastardicu alxamqa haweeneyda doqonta ah ama laga caqli badan yahay ise caruurta idiin nuujinin bimacnaa aakhir marka waxaad ka fahmi kartaa ha guursanina inay meesha ku jirto haddaad gabadh laga caqli badan yahay guursato inay ciyaalkiina doqonma kaa noqdaan ayaa laga digayaa marka haddii lagu yidhiyeysa kaa nuujinin hooyo inay kuu noqoto daaya tu kale oo hooyaba u ahayn ha iskooga dhiibin oo aysa kaa nuujinin ilmaha xilligii hore oo masalan carabta oo kaleeto daarin aada u badan bay ahayd oo nabiga caleyhi afdal wasalaatu atama tasliim waa tii ay nuujisay hooyadii xalimatu sacdiya oo hooyo ugu ahayd maaragtay nuugmada dee hooyana waa lagu magacaabi karaa oo rasuulku caleyhi afdal wasalaatu atama tasliim hooyuu ku dhihi jiray marar kamid intuu arkay ayuu gu-iisii isagoo huwanaantuu jasadka shariifka ka dulqaaday ayuu u goglay caleyhi salaatu wasalaam qur-aankuna wuu cabiray wa ummahaatukum min aridaaca bimacnaa marka nuugmadu marka majaal noocaas oo ballaadhan weeye bulshaduna inay ku dadaasho oo hooyadu ay ku dadaasho in ilmaheedu intuu ka kobcayo ay nuujiso oo iyada oo caafimaadkiisa iyo xoogiisa iyo caqligiisaba iyo daryeelkiisa ka qeyb qaadanaysa iyo waalidkuba ayaa fiican oo caruurta la kala koriyo islaamku tandiima nasli uu ogol yahay in ciyaalka la tandiimiyo oo waqti loo dhexaysiiyo waxaan la ogolayn taxdiida nasli inuu dhig ku dhaho 2 ilmood baan dhalayaa ama 4 baan dhalayaa ama gabadhu ay dhahdo waxaan dhalayaa 5 ciyaala bas wax ka dambeeya ma ogoli yaan la ogolayn laakiin in la tandiimiyo waa la ogol yahay wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء شيخ ميزانك حسناتك الله سبحانه وتعالى كو سارو شيخ سؤاشا كله waxay leedahay nuugmada maxay tahay axkaamta nuugmada ka dhalanaysa ama waxyaalaha ku xaaraantinimoobayo qofku marka uu nuugo qofka kale maxay tahay nuugmada waxaa ku xaaraantinimooba suud goonuhu sheegay caleyhi afdal salaatu wa atamma tasliim ma yaxrumu bin nasab wixii nasab ku xaaraantinimooba ayaa nuugmadana ku xaaraantinimooba bimacnaa qur-aanku wuxuu sheegay oo nusuusta sharciga cadeysay in ragga 7 dumara inay guursadaan ay xaaraan ka tahay xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu lakhi wa banaatu lukt 7daasaa la iska xarimay 7daa dumarkee la iska xarimay marka hooyadii waa la xarimay wain calad way fogaan kartaa ayay noqon kartaa oo hooyada xaaraan bay ka tahay aabaha hooyadii xaaraan bay ka tahay marka hooyo waxaa laga wadaa hooyo kasta hooyadii tooska ahayd iyo hooyadii fogeed labadaba waa laga wadaa waxaydna xaaraam ninkii ka hablihiisii uu dhalay ayaa xaaraan ka ah waydna waa in maaragtay hadday doonto ha degto in nasalat oo awowba ha u noqdo waxaydna qofkii xaaraamka ah eedooyinkii ayaduna waa in calad eedada aabbaha ay walaalayihiin te awowga walaalayihiin wahaakada kuwad xataa soomaalida waxay dhahaan eeda ma guurto oo awowga islaantay walaalaha ahaayeen eedo un bay kuu noqonaysaa marka eedadu meel kastay joogto ayadna waa eedo un waxaa kugu xiga habaryarta oo hooyada ay walaalayihiin walaalo waxay ku noqon karaan isku hooyi isku aaba yihiin in isku aaba kaliya yihiin isku hooyo kaliya yihiin waxaa kugu xigta eedadana saas lamida ficil ayaduna weeye waxaa 6 ku ah banaatul ukhti waxii ay walaashaa dhashay ee abtiga u tahay walaasha aad isku shaqiiqadaada ah taa isku aabaha tihiin taa isku hooyada tihiin waxaa iyaguna ku xiga gabdhihii banaatul akh oo walaalkaa dhalay adeerka u ahayd iyaguna ku xiga 7daas ayaa ninkii xaaraanka ah idan 7 lamida jira marka oo ridaaca ah oo ninka eedna xaaraanka ah hooyadaadii ku nuujisay waa ka xaaraan gabadhaadii nuugmadu waa ka xaaraan waa ta ugu adag ee marka xataa kutubta akhrisan jiray fahankeeda nagu adkaan jiray see gabadhu kugu noqonaysaa nin ayaa reer xaas buu lahaa
xaaskiisa say culimadu dhihi jireen asaga ayaa irmaaneeyey carabigana faxal baa la dhahaa, asagaa irmaaneeyey. idan hooyada ayada ahaa ninkii irmaaneeyey ilmahay nuujiso aabbuu u noqonayaa, abuuhaa fi ridaacu noqonaya. xataa hooyadeen caaisha radi allahu canha oo xaasaska nabiga kamid ahayd ilaa ka raal noqdee oyna binti sidiiq ahayd, waxaa weeye nin baa jiray aabbo u ahaa abulqucays la dhihi jiray oo islaan nuujisay ninkeedii ahaa. markaasaa nin adeerkeeda halkaa uga yimid kasoo galay isaguna oo maaragtay aflax la dhihi jiray. markaasay nabiga weydiisay sala allahu alayh wasalam tiri ina aflaxa abulqucays, aflaxii abulqucays walaalkii ahaa wuxuu sheeganayaa inuu adeerka yahay maadaama abulqucays aabbahay fi ridaaca u yahay. nabiguna ugu asixiyey wuxuu yihi haa waa adeerka. marka aabbaha marka wuxuu noqonayaa wa banaatukum fi ridaaca, waxaa weeye waa taawe. qur-aanka marka waxaa kusoo aroortay laba keliya, wa ummahaatukum min aridaaca wa akhawaatukum, labadan baa kusoo aroortay. laakiin xadiiska nabiga toddobada kaleba laga fahmay calayhi afdal salaati wa atama tasliim. gabadhii aada nuugmada walaala ku haydeen oo islaantii ku nuujisay ama hooyadii ku nuujisay yaa iyadana nuujisay, ama way dhashayba saasay ku nuujisay, ama iyadana sidaadaa loo keenay oo nuujisay. waxaa iyadna lamida maaragtay dee gabadh hooyadii ku nuujisay walaasheed habarartaabay noqon. ninkii maaragtay aabbaha kuu noqday walaashi eedada fi ridaacati bay noqon. qolyihii aad walaalaha ku noqoteen ridaacada oo dhan hadday wiilal yihiin waxay dhalaan gabdhahay dhaleen adeer baad u noqon, hablihii ay dhaleenna abti baad u noqon. marka toddobadiiba halkaasay kasoo baxayaan. marka intaa nasabka xaaraanta ku ah halkana xaaraan bay ku noqonaysaa. si marka fahamka ugu soo dhawaado walaalkayna daawanaya, waxaa weeye meesha 3 qof baa joogta oo ridaacada calaaqa la leh. qof waa dumarka wax nuujinaya ee hooyada noqday, qofna waa qofkii xaafadan asalka ahayd ee jirtay soo dhexgalay ee la nuujiyey ee la dhalin. aabbana waa aabbadii aabbihii reerkaa iska lahaa ee haweeneeda irmaaneeyey. marka 3daa qof baa meeshii joogta. idan ilmahan meesha soo dhexgalay xaafadda reer geedi aan kasoo qaadno, islaantana khadiijo aan kasoo qaadno, geedi iyo khadiijo wiilkii loo keenay ee cumar ahaa, xaafadaasoo dhan qaraabu leeyahay. qof xaafadii kamiduu noqonaya asaga iyo wixii uu dhalay yaa qaraabo la noqonaya. caruurtiisii marka ciyaalka ay walaahiin adeeree u noqonayaan, isagana saasi lamid ay ku noqonayaan. laakiin qaraabadiisii kale calaaqa lama yeelanayaan. isaga keligii iyo wuxuu dhalay aabihii calaaqa lama yeelanayaan, walaaladii calaaqa lama yeelanayaan, wahaakada halkaa kasii wad. marka intaasoo dhan ayaa xaaraam ku ah. nusuustuna aada bay u cadaysay tafaasiisha sida xadiiska hadda aan sheegaynay. waxaa kaloo adina jira nabiga caleyh afdal salaatu wa atama tasliim sida xabru haadihi lumma uu werinay radi allahu canhu waardaaha ibnu cabaas. nabiga wuxuu leeyahay yaa lala damcay gabadh xamze ibnu cabdulmualib u dhalay oo ilma adeer laxmay ahaayeen, labadooda aabbaa walaalaha. xamze cabdulmualib baa gabadh dhalay oo sayid shuhada ahaa. isaga nabiga sal allahu alayh wasalam de ina cabdullahi cabdulmualib bu ahaa. markaasaa nabiga waxaa lagu yihi sal allahu alayh wasalam gabadha xamse ha lagu guuriyo. nebigu wuxuu yihi walaalkaybu xamse ahaa, gabadhana adeer baanu ahay, akhuuhu fi ridaacu marka ahaa. nuugmaday walaala ku ahaayeen, xagga kalena adeerkiibuu ahaa fi nasab, xagga nuugmadana walaalay ku ahaayeen. marka walaaltinimadii waxay ka xoog badnaatay hadda nasabkii. gabadhi marka wuxuu noqday cam fi ridaaca ayuu noqday. nabigana xaaraan bay ka ahayd inuu guursado caleyh afdal salaatu atama tasliim. sidaa ayuuna nabigu guurkeedii uu kaga baaqday maadaama uusan guursan karin oysan u banaaneyn oo aabaheed walaala yihiin. fi nasab gabadha waxa weeyaan ilma adeer weeye, adeerkeedaa dhalay. fi ridaacana isaga adeer u ah, nabiga adeer nuugmadiina aabaheeday wada nuugeen, marka halkaas adeer ahaayeen. saasaa kaga xarimatay. marka way fara badan tahay nusuusta noocaasi. 7daas sifi ee nasabka xaaraamta ku ah sida nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa ayaguna ku xarimaya maxaan ku dhahaa ridaacada. wallahu aclam. jazaaka allahu khayr aljazaa sheekh, miisaanka xasanaadka allah subxaana watacaala ha kuu saaro. saa-ilka kale su-aashana soo weydiiyey sheekh wuxuu dhahay qofka uu nuugo ama wixii nuugmo ku yimaada maxram ma isu noqon karaan? yani dadka noocaasi maxram ma isu noqon karaan? maalan yani qofku hooyadii uu nuugay maxram ma u noqon karaa? gabadhii maxram ma u noqon karaa? gabadhiisii nuugmada maxram ma u noqon karaa? halka maxramnimo ma soo gelaysaa sida ay usoo gelayso min nasab? baarak allah fik. ha horta intaan halkaa aana gelin waxaa ka horeeya oo laga yaabo inay muhiim tahay in la iftiimiyo. qofka
culimadu waxay isku khilaafsan yihiin raxmatullaahi calayhim goorma ayay nuugmadu noqonaysaa nuugmada wax xarimaysaa marka sida xooga badan sida qur-aankaba ku cad walwaalidaatu yurducna awlaadahuna xawlayni kaamilayni وحمله وفصاله 30 شهرا آيات القرآن يعني قفك لبضع سنة اللي هلا نوجيه 30 شهر مفسرين وحكوا فسرين وحا أغير المها اللغوط اللي كانوا لح بلاد لح بلاد يحاول يعني كامل يبقى لسوقين يا مرك أفر يلا بعتن بلاد صدم بلاد هاسا يكون نقطة ساعة مرك الأفر يلا بعتن كابلاد ولا بس سنة أو المه أنت وعانا كوكب عيا المه اللي نوجيه أيا كو xukunka qaadanaya culimada sidaati shaaficiyadu kamid tahay iyadana xoog badan qodobka labaadna waxa weeye oo ilmihi waa inuu yahay ilmo yar laakiin waxaa laga yaabaa in masaa'il khilaafi oo hadda waqtigu noo saamixi karan ay gasho waxaan sheegaynaa sida xooga badan iyo siduu madhabku qabo madhabkeena shaaficiyada marka shaaficiyadu saasay qabtaa sidaa ayaana xoog badan qodobka labaad waxaa weeye ilmihii wuu ooyey hooyadii naaska ay ku yarduuday hal mar ويرنوغي بس انتهى الموضوع حقوقي مقانا سامايا 5 رضاعات وان شن شير لنوجيو مش بعات هدنا شن شير وان ما نوغمو دبا او لا هبو لنوجيو وي لكن هل نوغمو مر افك لو ساره iyo bas inta waxa ma tareys halka waxa ka sii dhalanaysa su'aal kale oo iyana hadii ninku uu naagtiisa caanahiisa cabo iyana ma noqonaysa ummin radaa'a ha waa qodobkii hore ka bilaabay oo ahaa marka xurmo galaysa ridaacadu si shaaficiyadu qabto waraajix cindaha cilmina ah sida xooga badan waxa weeye waa in cindaha cilmi hadaan waxa laga yaabaa inaan yani yar shaaficiyadu yara jiidato oo de ahlu cilmigu iskhilaafsan yihiin laakiin sida xooga badan waxa weeye in uu marka ayada uusan wax ictibaar lahayn ama xaaskiisa ha noqoto ama gabadh kale ha noqoto إلا وصلنا وكودن باب ما نوين بهدو ياهي إنسا wax saameyn lahayn oo xog laga qaadan karin ayaa xoog badan qolka kale marka wuxuu noqonayaa qol اعتبارtiisa la fuqaha waaweyn ay qabaan oo xataa madahib arbaca kamida laakiin daciif oo laga xoog badan yahay ama marjuuxan dhaho laga xoog badan yahay uu noqonayaa idan qolkii hore ee shaaficiyada waa inuu ilmuhu yar yahay oo laba jir iyo wixii ka yar yahay ama nin weyn baa la nuujiyay ama xaas ha noqdo ama si kale ha loo nuujiyay wax meesha xugun oo laga qaadanaya ma jirto su'aashaadii kale hadaan soo laabto taas horta marka way caddahan waa in uu laba jir noqdo iyo wixii ka yar 5 jeer muddo gaadhan la nuujiyo oo nuugmada ayadii ay nuugma xaqaatay xagga mahramka ha mahram buu noqonaya waa hooyadii weey hooyadii nuujisay waxa waa hooyadii bas waxay kala bedelayeen waa ummuhu fi nasab iyo ummu fi ridaa'a xuquuqda sharciga ee laga hadlayo ee faraha badan ee leeyahay mesela nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam markii la weydiiyay dadka ay ugu suxba badan oo nabigu leeyahay ummuk waxay noqonaysaa tanasabka taas loo jeedaa wax kasta oo markii la aljanna tahta aqdaam ummahat hooyadaas loo jeedaa biriga xaqiiqiga la sameeyo darajo uula hooyadaas loo jeedaa laakiin janibka kale ee mahramka ah waxa weeye way noqonaysaa hooyadii maxram buu noqonayaa ma guursan karo وهكذا والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء شيخ. داوديال waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeennii diinta iyo nolosha oo aad nooga barateen habeen walba oo jimcaha sabti soo galayso iyo habeen walba oo sabti oo axad soo galayso inaan idin soo marino hawada telefishinka New Africa TV. waxaan galeynaa qadar yar oo nasasho kadib waan isu soo noqonaynaa shaashada ka fogaanina. telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshadeynta Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida Sawaaxiliga, Hawsaha, Ahmaariga iyo afka Soomaaliga fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa Khartoum, Suudaan higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda
daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijkeenii diinta iyo nolosha oo aan habeen walba oo jimcaha sabtina soo galayso aan su-aalo diin iyo ku weydiino sheekheena sheekh cabdulfataax maxamed barkhadle. barnaamijka intaan ku guda jirno daawadayaal wax su-aalo aad sheekha weydiineysaan hadday jiraan waxaad nagala soo xiriiri doontaan nambarada shaashada idinka soo bixi doona, ama waxaad noogaga tegi doontaan su-aalaha barta aanu ku leenahay facebooka ama youtube-ka ama qeybaha kale ee bulshadu ay ku wada xiriiraan. barnaamijkeena caawa su-aashii ugu dambeysay eenu caawa sheekha weydiinay ee ku saabsaneed ridaacada ama nuugmada iyo wixii la xiriira, intaa ayaynu kaga gudbeynaa. waxaan u gudbeynaa su-aalo kale oo iyana bulshada ka yimi, oo su-aasha koowaad waxay leedahay sheekh bulshadu caawa ina soo weydiiyeen markaan ka tagno qeybtii nuugmada iyo la xiriiray waxyaalaha la xiriira nuugmada. wuxuu leeyahay qofkan kale su-aasha ina soo weydiiyey muslimka, qofka muslimka ah rasuulka sal alla alayhi wasalam wuxuu dhahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. muxuu yahay waxa uu qofka muslimka ah xadiidka ka qaadan karo ama macnaha iyo muxtawaha laga rabo qofka muslimka inuu xadiidka gudihiisa ka fahmaa muxuu yahay? waa run nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi almuslim man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. qofka muslimkiihi intaan wada garanayno waxaa saaran xuquuq baa saaran iyo waajibaad. si kale haddaan u dhigno ruuxa muslimka ahaa markii xuquuqdii iyo waajibaadkiisii la baray waxaa lagu yiri niyahow cidna ha dulmeyn. dulmiga asagii marka wuxuu noqonayaa 3 dulmi ayay shareecadu u qaybisay. mid waa inuu ilaahay abuuray jala sha'nuhu oo dulmiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada wax la wadaajiyo, waana ka ugu khatarsan. midna waxaa weeye waa adulmu likhalqi illah, inuu khalqigii ilaahay dulmiyo oo adoomihii ilaahay ee muslimiinta ahaa oo dulmiyo. midna waa adulmu linafsihi, waa inuu naftiisa dulmiyo oo khayr uu sameyn lahaa oo ajir ku heli lahaa ka tago oon muslimiinta dhib ku ahayn. masalan qofkii salaadii buu ka tegay masaajidkii lagu tukanayo salaadii aadi waayey, naftiisa unbuu dulmiyey ee muslimiinta wax dulmiya muna u geysan. marka adulmu linafsihi bay noqonaysaa. 3daa dulmi bay dulumaadkii marka noqdeen. marka marar fara badan xataa qur-aanku markaa wuu cabiraa, yani oo manhajka qur-aaniga wuxuu cabirayaa qofkii mu'minka ee camal saalaxa laga helo markaa reebo man yacmal min asaalixaati wahuwa mu'minun baa la dhahaya. intaasoo jeeb qofkii camal wanaagsan la yimaada asagoo oo mu'mina falaa yakhaafu dulman walaa hadma. dulmiga marka la sheegaya wuxuu noqonayaa adulmu inuu dulmiyo lilkhaaliq ilaaha xaqa jala sha'nu, inuu dulmiyo abuuray oo cibaadada wax la wadaajiyo. ina adulma la shirkun cadiim. ina shirka la dulmun cadiim. marka taasna waa saas. oo marka xataa laleeyahay waladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaika hum muhtaduun. dulmiga kaa kalaa lahum lamnu wahum muhtaduun. dulmigaa kalaa lagu fasiray oo ina shirka la dulmun cadiim inuu yahay. marka shirkigaas waa shirkiga ugu weyn ee ugu khatarsan weeye. shirkiga dulmiga lamaadna inuu naftiisii uu dulmiyo. dulmiga 3aadna waa inuu khalqiga dulmiyo. sidaa awgeed ayaa waxay dhahaan qofku fii ma'manin maa lam yafcal daratayni. qofku yani fusxa ayuu diintiisa u haystaa inta uusan 2 midna gelin. ashirku billaahi walidraaru linnaasi, inuusan ilaahayna subxaanahu watacaala waxba u sharik yeelin, dadkana uusan dhib u geysanin. idan qofka muslimkaa waxaa tooshka loogu ifinaya oo xadiiskani iftiin dheeriya ka bixinayaa inay bulshadu fahanto in ilaahay subxaanahu watacaala calaaqa fiican idinka dhaxayso oo muslim noqoto, adiguna naftaada aada dulmiyin oo wixii lagaaga baahnaayo cibaadaada ee tahaare iyo salaad iyo soon iyo zaka iyo xaj lagaa helo, laakiin bulshadii aada dhibayso inuusan iimaankaagii kaamil ahayn oo islaamnimadaadii naqsi ku jiro. من هنا ayaa udgoonuhu cadeeyay calayhi afdal salaatu aatama tasliim uu yihi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi. qofka muslimka la dhahaa waxaa weeye qofka gacantiisa iyo carabkiisa muslimiintu ay ka nabadgalaan. haddaba darajaad bay noqonaysaa nabadgelistaasu oo mararka qaar waxay noqonaysaa macaasi iyo aathaam keliya iyo noqon.
mararka qaar kabaa'ir bay geli iyo buhtaan iyo ithmi weyn bay noqon sida qur-aanka baa ku cado ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy ina aladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ithman mubiinan yacni kuwa mu'miniinta dhibaya xataa asagoo hadduu doono asagii muslimba ah ayuu dararkii muslimiintu ka dhacayaa xataa dhibkii ugu weynaa ama dhibabkii ugu waaweynaaye nabiga caleyhi afdal salaatu atama tasliim qabsanaya waxaa kamid ahaa markii cirdigiisii wax laga sheegay dad muslimiina ayaa dhex yaacay oo hawshii ka qayb qaatay islaamnimadoodii marka looma diidayo laakiin waxaa la sugayaa inay dembi weyn galeen oo toobad looga baahan yahay mararka qaarna sakaa'ir buu noqonayaa mararka qaarna waxaa laga yaabaa inuu kasii weynaado oo darajo ka weyn u gaalo xataa maarata sida dee culimmadu raxmatullaahi caleyhim ay iskugu khilaafsan yihiin qofkii dhibkiisu uu noqdo masalan fal sixir oo kaleeta hal yuqtalu kufran ma gaalnimaa loo dili meel loo dili maayo ma la xidi halkaas culimadu marka dhibkii mararka qaar sixir buu noqon karaa uu halkaasuu gaari karaa mararka qaar dhibku wuxuu noqon karaa inuu dad waaweyn oo wanaagsan oo rumuus ummadda muslimka oo sida saxaabada oo kaleeta inuu dhibayo ilan saxaabadu min dimni lmu'miniin bay kamid yihiin taasoo kale xataa culimadu isku khilaafsan yihiin oo qaar waxay leeyihiin waa la tacsiiraya qofkii saxaabada caaya ridwaanullaahi caleyhim qaarna waxay leeyihin maya waaba la dilaya hadda maalikiyada oo kale waxay qabtaa in la dilayo shaaficiyadu waxay qabtaa in la tacsiiri oo la xidi aayaddii qur-aanka ee qoladii saxaabada ee qolada kale wax ka sheegtayna laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum watuu dhahay qoladii tiri quraada iyo ragga hore sufuufta hore taagan ee muslimiinta ahay yani maxaa ka calool weyn oo ka baqdin badan cinda liqaa wax ka sheegay jubniga ku xantay axsanta marka intaasoo dhan waxay noqonaysaa maraaxishaas ayay kala yeelanayaan oo nusuusta sharciga isa kala cadeynayso ayay u qaybsamayaan marka ta ugu fudud waa maxay waxaa weeye aan ku fasiri karo waa naqsi xataa adiga arkeed goonuhu caleyhi afdal salaatu atama soo ku leeyahay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih waxaa lagu fasiray yani iimaamkiisu taama noqonayo oo naaqis ayuu ahaanayaa ilan iimaamku yaziidu bitaacaat wayanqusu bilmacaasi marka jacaylkaa walaalka aad u qabto hoos kaaga dhaca dhib gacameed oo kaa gaara dhib af oo kaa gaara markasta adiga rasiidkaagiibuu cunayaa oo hoos u ridayaa adduunyo iyo aakharaba hoos u dhac ayuu kugu keenayaa marka waxaa haboon marka inay bulshadu ku baraarugsanaato inaysan qaarkeed qaarka kala dhibin min hunaa ayaa arkaysaa xataa shareecada islaamku waxay marka ugu horeysaa ay aada u danaysay in ay tixgelinta koobaad siisa dadka kuugu dhow markaasaa waxay tidhi yaa markay adduunka timid waalid baad leedahay waalidkaa marka xidhiiri oo baari u noqo haddii laakiin waalidkaa aada dulmi kula kacdo walow ufin ha noqote walaa taqul lahumaa ufin ha noqotee waxaa layidhi caaq baa tahay magac baa loo bixiyey gooniya marka waxay noqotay dulmi dad muslimiina gaadhaya ama xataa mararka qaar ilaahay naga ilaaliya muslim ba aan ahayn markaas waxaa loo bixiyey magac cuquuq la dhaho haddana waxaa layihi walaalaad leedahay aabbahaana qaraabu lahaa hooyadana qaraabay lahayd qaraabadaa kugu heereysan ee ehelkaaga ahaa ama ha kugu yimaadaan xagga nasabka ama xagga reeabtiga ama xagga xididka iyagina waxaa layihi xeedhin bay kaa rabaan silaturaxim waa lagaa waayey qatiica loo bixiyey iyadana oo dembi weyn oo la galay noqotay oo qofkii lagu kari waayey qaraabada inuu xidhiidhiyo qof qaaticu raxima ayuu noqonayaa waxaana kusoo aroortay goodiye waaweyn min huna ayaa qofkii haddana halkaasa kasii soconaysaa reer buu yeeshay xaaskiisii hadduu ku xumaado suu-ul cushra loo bixiyey xaaskii haddii asaga ku xumaato nujuus baa loo bixiyey haddii ilmihiisii uu tarbiyeyn waayo sidii cumar radi allahu canhu uu lahaa qad caqaqtahu qabla an yacuqak caaq adaa ku noqday intuusa ilmahaagu caaq kugu noqonin suu-u tarbiya loo bixiyay ilmahaaga adaan si fiican u tarbiyeynin haddana xaafadii baan ka baxaynaayo guryihii deriska ahaa xuquuqul jaar baa la keenay intaasoo xuquuq kadib haddana waxaa ku jira xuquuqdii mujtamaca iyo bulshadu ay qofka ku lahayd marka islaamku intaas oo muraacaad iyo intaasoo darajo iyo intaasoo magac ayuu isu daba dhigay si qofka muslimkii uu ugu barbaaro xaqu lwaalideyn xaqu rixim xaqu zawj xaqu zawja xaqu ljaar xaqu lmujtamac xaqu lmuslimiin uu qofki ugu barbaaro ayaa maaragtay intaasoo dhan isu daba dhigay kadibna udgoonuhu caleyhi afdal salaatu atams wuxuu cadeeyey xuquuq ay isku leeyihiin muslimiintu dhexdooda oo markaa nabigu axaadiis fara badan uu ku cadeeyey caleyhi afdal salaatu atama tasliim almuslimu
xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun say riwaayadku isu khilaafsan yihiin idan bulshadii oo dhan waxay noqonaysaa bulsho xuquuq isku leh oo dhibkiina meesha laga saaray min huna ayaa udgoonaha calaa afdal salaatu atama tasliim markuu saxaabada sadaqada ku boorinayay wuxuu ku yidhi qofku wax kasta oo uu sameeyo oo wanaagsan sadaq uu cabiray sadaqa 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 watuciinu qofka baahan baad u kaalmeynaysaa sadaqa jidka yaad ka qaadaysaa wax xun sadaqa marka nabigu sal alla alay wasalam wuxuu sadaqadii wadaba walkalima ayiba sadaqa nin saxaabada kamid oo faridaa nabiga weydiiyey sal ly slam rasuulka ilaahayow waxaad sheegi oo dhan ee sadaqaa qofku hadduusan awoodin ama wuu awoodaayo uu sameyn waayo labadaa mid uga taga bal ayada ka waramuu nabigu ku yihi sal allahu aleh wasalam markaasaa nabigu wuxuu ugu jawaabay caleyh afdal salaatu atima tasliim inaad sharkaaga dadka ka haysato ayaa ayaduba sadaqa imsik sharaka can innaas fa inahaa sadaqa sharkaaga dadka ka celi oo afkaaga iyo adinkaaga dadku ha ka nabadgalaan ayadaa sadaqa kuu noqonaysa min hunaa ayaa marka su-aashaa saxaabiga fariidka uu weydiiyey jawaabta ka teed waxaan ka fahanay qofkii khayrba aan samaynin ama cajis u sameyn waaya ama waxtar la-aan u sameyn waaya ama ilaahay addoomaha ma simine ilaahay uu ka dhigay qof muncasil oo bulshadii aan dhexgeli karin ee gurigiisa iyo masaajidka iyo shaqadiisa un ka dhexeeya ee intaa un ku koobnaada bal asaga ka waran sharkiisa oo dadkaasa sadaqa asagana u noqonaysa idan bulshadeena qaar fara badan oon shar lahayn ayaa jira oo shar la-aantooda ku ammaanan nafcina aan lahayn saxaab maqasa dadka ku dhahaya hebel khayrra ma laha sharra ma laha laakiin way ammaanayaana wuxuu ka fiican yahay midkaa sharka ah ayuu ka fiican yahay maaha macnaheedu inuu zero taagan yahay ee dhibco waaweyn buu haystaa sadaquu haystaa darajuu leeyahay qiimuu leeyahay oo bulshada inta rogtay kuma jiro marka xadiiska macnihiisu marka yasubuhuna halkaasu kusoo shumayaa odgoonuhu caleyh afdal salaatu atama tasliim yurshiduna wuxuu inagu hanuuninayaa oo ina barayaa qofka muslimkii inuu dhaqan ka dhigto inay bulshadu ka nabad gasho afkiisa iyo adinkiisaba wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljazaa sheekh daawadayaal waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena diinta iyo nolosha barnaamijka intaan ku guda jirno wax su-aalo oo qabtaan hadday jiraan waxaad noo soo dhigi kartaan waxaad nagala soo xiriiri kartaan nambarada shaashada idinka soo muuqanaya ama waxaad noogaga tegi kartaan barta aanu ku leenahay facebooka ama youtube-ka iyo qeybaha kale ee bulshada ay ku wada xiriiraan sheekh su-aasha kale waxay leedahay oo ay bulshadu caawina soo weydiisay muxuu yahay dembiga ka ratirmaya ama dembiga uu ka qaadayo qofka yacni dadka mar walba dhiba mar walba dadka dhibta u geysta dembiga uu qofku ka qaadanaya dhibta uu mar walba dadka u geysanaya maxay tahay dhibkiisaan soo sheegnay mar wuxuu noqonayaa inuu waalidkii dhibo masala haddaan bulshada fiirino cuquuq buu noqonayaa oo caql waalideyn buu noqonayaa oo dunuub waaweyn oo kabaa'iray noqonaysa mar qaraabadii hadday noqoto dadkaa uu dhibayo qatiicu rixm buu noqonayaa oo dee meeshii xiriirin la rabay ayuuba dhib ugu bedelay min hunaa marka waan wadaynaa bulshadii guud dembigii uu ka gelayay iyaguna qeybay yeelanayaan mid waxay noqonay inuu jaarkiisii dhibayo udgoonaha caleyh afdal salaatu atamase waa la weydiiyey haweeney baa looga sheekeeyey waxaa lagu yidhi salaadeeda waa la ammaanay iyo soonkeeda iyo khayrkeeda aada baa loo ammaanay laakiin waxaa layihi laakinahaa tu'dii jaaraha jaarkay dhibtaabaa nabiga lagu yiri sal slam inahaa fi naar buu walciyaadu billah naartay gelaysaa buu nabigu sal allahu caleyh wasalam idan qofkii marka jaarkaas xataa jaarka mararka qaar dadku mafhuum dayiq ay ka haystaan jaarku wuxuu noqon karaa 40 guri oo midig ka 40 guri oo bidix ka 40 guri oo hore ka 40 gadaal ka hadda dabaqyada dabaqa haddaad degan tahay 20aad 40 kaa sareysa 40 kaa hooseysa ama 20 kaa hooseysa ayuu noqon karaa marka min huna jaarkii waa bulshadii weeye waa xaafadaadii magaalooyinka oo kale loo soo qaado magaalooyinka qaybtood marka yaraantooda la eego iyaga dhan baa jaara kulligood baa wada jaaraba qaarkood maxaa yidhi jifaaba degan iyo qaraabaa degan waxaa nabigu caleyh afdal salaatu atama tasliim saxaabada kamid ah beer u keenay oo yidhi rasuulka sadaqa iga tahay nabigu wuxuu ku yihi qaraabaada ku sadaqee anas wuxuu sheegayaa in ay qaraabadii uu ku sadaqeeyey ay awowga 7 ku kulmayeen marka haddii xaafada ilaa awowgaaga 7 aad tirsata ka waran riwaayana awowga 6 bay leedahay marka waxaa lagu jamciyaa in aabbaha lagu daro marka haddii 7 aabbuhu ku jira aad tirsato de waa qaraabadaada dhow oo dhan bay shablanaysaa marka min huna ayaa waxaa cad yacni mafhuum waasac ayuu jaarka laftiisu yeelanayaa haddana qiibay haddana dembiyada qaar noqonayaan qaar wuxuu noqonayaa iftira qaar wuxuu noqonayaa dil buu marka dambe gaadhaya dhaawac marka dhibkiibaa fara badan oo intaasoo nooc yeelanaya
mid kastana marka xukunkiisa ayuu leeyahay laakiin hal xadiis ayaa inoo shamlin kara markii loo gudbo xisaabtanka aakhiro oo kaleete oon geli karna hadduu waqti inoo saamaxay باذن الله جزاك الله خير الجزاء daawadayaal waa barnaamijkeennii diinta iyo nolosha oo aad ka daawataan tv-ga new africa tv xaruntiisa dalka suudaan xaruntiisa magaalada kharduum ee dalka suudaan qadar yaroo nasasho aan gelaynaa nasasho kadib waan isu soo noqonaynaa shaashadda ha ka fogaanina telefishinka new africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshaweynta Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida sawaaxiliga hawsaha ahmaariga iyo afka Soomaaliga fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa Khartoum Suudaan higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda daawadayaal waa barnaamijkeennii diinta iyo nolosha oo aan habeen walba su-aalo ku weydiin jirnay sheekheena sheekh cabdulfataax maxamed barkhadle caawa barnaamijkeenna su-aalahan sheekha weydiinayna ee kala gegedisan ee ka yimi shacabka ama bulshada ku xiran telefishinka su-aashan waxay leedahay sheekh intaana su-aasha hore u gudbin su-aashii hore dhibta uu ama dembiga uu ka helayo qofka dadka dhibaa dembi intee la eeg buu noqonayaa qofku markuu noqdo qofka dadka dhiba dembiga uu ka qaadayo markii hore anay ku dhex jiray waa run dembiga asaga ah marka anwaacdaas ayuu yeelanayaa oo qofku kolba dembiga uu gelayo iyo darajada uu dhan yahay ayuu noqonaysaa dembigiisu laakiin xadiis baa jira shamlinaya udgoonuhu caleyh afdal salaatu atamu tasliim saxaabada ridwaanullaahi calayhim uu weydiiyey oo ku yidhi atadruuna man ilmuflis ma taqaanaa qofka caydha ah sida dee qofka adduunyadan ku nool qalbigiisa kusoo dedegaysa oo markii jaanibka maadiga lagu fiiriyo ayaa saxaabadiina usoo degdegay waxay dhaheen waxaan u naqaanaa qof aan xoolo haysanin man laa dirhama lahu walaa dinaar riwaayo kale man laa dirhama lahu walaa mataac qof yacni waxba adduun ka haynin guryo ma laha xoolo ma laha xoolahaas noocuu doonaba ha noqdaan baad iyo noole midna ma laha qofka asaga aha ee caydh ahaan u naqaanaa bay dheheen nabigu sal alla alay slam marka mafhuumkoodii maadiga ahayd ee adduunyada ku wajahnaa iyo qiimeynta xoolaha uu ka leexiyey oo meel kale wayna filaynin buu u leexiyey mafhuumkaasaana rabaa qof kasta oo muslim inuu ka duulo oo markaad bulshada eegaysa waa nadar maadiya aada ku eegin yaa xoola haysta yaa jeebkiisu qoyan yahay yaa caydha yaa faqiira qofkii nadraha dad ku eega sax ma aha oo wax ku qiimeeyo ashkhaasta xataa waxlayaha dadka lagu qiimeeyo inay noqoto ma aha in qofka cv-giisa markii la akhriyayo ee la rabo in dib loo akhriyo siiradaatiyadiisa shakhsiyadiisa in la qiimeeyo in la dhaho hanti muxuu leeyahay saanu ama xil ugu dhiibano ama dadanimadiisa ogaano ama yacni sax ma aha
marka qofku asagoo caydha ayuu qof wanaagsan noqon karaa, isagoo xoolo adduunye haystana wuxuu noqon karaa qof caydh ah. marka dhankaas ayuu nebiga ka soo leexiyey sal allahu alayhi wasalam, wuxuuna u sheegay qofka mufliska ee xaqiiqiga kuu yahay. adduunyadana waa laga tago, xaggee la aaday? aakharo baa loo guuray, oo hadda waxaan joognaa xadiidka jawaabtiisa ka cad markii aakhare la tago. idan markii qiyaamaha la tago dadkii waa la kala bixin, ilaahay subxaanahu watacaala baana kala bixinaya, addoomahana asagaa kala xukumaya. bal addoomuhu muddo aada u dheerba waxay ku mashquulayaan oy aada u baryayaan oo ay ku tashanayaan oo isweydiinayaan meesha in lana kala kaxeeyo oo la isxukumo. xataa qaarkood ay dhahaan walow binaar, naar hana lagu xukumee, bal meeshana laga dhaqaajiyo ay gaadhaysaa. markaasay aadam u tagay, nuux u tagayaan oo iska wareejinayaa, ibraahim bay u tegay, muuse u tegay, ciise u tegay, xataa oo ciise ka dhaho nabiga u tagay caleyhi afdal salaatu atama tasliim, oo rasuulka caleyhi afdal salaatu atama tasliim markaa loo yimaado oo rasuulkuna ana laha waa kale, anigaa iskale. kadib buu ilaahay subxaanahu watacaala uu u sujuudayaa carshiga hoostiisa. kadibna nabigu sal lla ly slam suu sheegayo maxaamid fara badan oo xilligaa ka hor uusan aqoonin buu ilaahay garasiinayaa, xilligaa ka hore ilaahay uusan ku baryin kuna ammaanin. kadibna waxaa madaxaa kor u qaad. su-aashayeen marka ila fogaanina markaa ayada xaaladdu halkaa marayso ee addoommihii in la kala xukumo udgoonuhu codsado caleyhi afdal salaatu atama tasliim, ee ummati uu leeyahay ilaah kuwa u shafeeca qaadaha nagu dara innaga iyo walaalahayna daawanayaba, ayaa waxaa weeye ayaa dadkii waa la kala xukumi. nin kasta marka ciddii wax ka tirsanayay iyadoo oo bayin oo waadixa, walxaqu yaclam, ilaahayna wuu ogyahay jala shaanu, ayuu qof kastaa codsanayaa. idan qofkii dadka dulmiyey ee qaar caayay, ee qaar xaday, ee qaar u gacan qaaday, ee qaar dilay, qof kastii dunuubtiisii dadkii baa saf soo gelaya haystay. wax ka orod badane qof kasta dembigii uu ka galay yaa loo xisaabina, dhag ajir u lahaabaa looga qaaday. qofka hadda la xisaabin ka hadleyno waa kii muslimka ah ee salaad iyo soon iyo zake laga aqbalay oo buuraleeg halkan u rasteysnaayeen, kadibna waa laga qaaday xasanaadkiisiba dadka loo qeybin, xasanaadkiisibaa dhammaanoo eber noqona. marka halkaa markuu marayo bay dadkiina weli saf kusoo jiraan, haddana waxaa imanaya kuwo kale oo weli wax u haystaa. markaasa waxaa leeyahay xasanaadkiisi way dhammaadeen, haye mal xukm, maxaa lagu kala bixin karaa? sayi-aad kuwaasu ay leeyihiin oo dembigii uu ka galay u dhigma baa laga qaaday, markaasaa dusha laga saaray. dembi nin kale leeyaha dusha lagaga guray. kadibna waxaa weeye isagoo xaaladaa ku jiro oo dunuub rag kale ay si keyr mubaashira u galeen, laakiin asagu ayaga dembi uu ka galay ka buuxo baa naarta lagu tuuray, walciyaadu billah. kaas wey marka ka caydha ah. xasanaadkii uu shaqeeyey adduunyo intii uu joogay isagoo la ilaahay cumri siiyo 60 sano cibaadeysanayay ayaa rag loo qeybin iyo dumar. haddana dembi ayaga ay lahaayeen baa dembi uu ka galay awgii baa dusha looga saaray. kadibna halkaas ayuu asagii ku noqonaysaa in dunuubta naarta lagaga soo dhaqo oo uu naar ku galo. ilaan dadka muslimiinta ahaa markii miisaanka la miisaamo sida shareecadii noo cadeysay, markii xasanaadku ay bataan qofku jannadu aadi, markay sayi-aadku bataanna qof waa lasoo tahiri. hadday sinaadaanna ilaahay raxmadiisa weeye. raxmadda ilaahay markasta unbaa janno lagu geli, oo wax raxmad ilaahay oo iyada meesha ole cidno xama qaban karto. laakiin nusuustu sidaas ay tafaasiisheeda iyo u kala cadeyso, miisaan baa jira. walciyaadu billah, ilaahay naga ilaaliyo. marka qofku waa inuu ka digtoonaado marka inuu dadka dhibo, ashirku billaahi walidraaru binnaasi, dadka inaad dhibto, inaad ilaahay subxaanahu watacaala wax u shirki yeesho, waa labada keliya tae qofku uu khatar ku jiro haddii laga helo maaragtay sijilkiisa saana uu ku dhinto. walciyaadu billah, wallahu aclam. jazaaka allahu khayr aljazaa. sheekh, su-aalaha dadka ka imanaya iyana waxaa ka mid a su-aal uu walaal kale leeyahay, qofka yani carabkiisa dadka ku dhibaya ama yani baraha bulshada iyo meelaha lagu xiriiro dadka ka dhibaya wax uga sheegaya, dembiga uu qofkaasi yeelanaya dembi intee la eg buu noqonaya? inagoo og rasuulka sal alla alay wasalam inuu dhahay yaa ii damaanad qaadaya inuu ka adkaado bayna fakeyhi wa bayna fakhadeyhi, labadiisa boodyood inta udhaxaysa iyo labadiisa daan inta udhaxaysa, adman lahu ljanna, aanu damaanad qaadee janno. xadiidka aan ka faa'iideysanayno yani in jannaba lagu tagayo qofku hadduu carabkiisa ka adkaado, ka waran dadka meelaha dadka ka caayaya ee dadka waxa weeyaan carabkoodii ku dhibaya amaba gacantoodii ku dhibaya ee dadkii usoo qoraya yani
waxay dhib ugu geysanayaan cirdigoodii iyo sharaftoodiiba. axsant run ahaantii qofku haddii uu dadka muslimiinta carabkiisa ku dhibo dee saad sheegtayba waxaa weeye qofka asaga ihi muslimiintii dhib badan ayuu u geysanayaa. xifdu lisaanna waa arrimaha ugu culus ee qofka muslimkaa laga rabo. dunuubta badankeedna waxay ka dhacdaa maaragtay carabka ayay ka dhacdaa sida axaadiistaba ku cad. idan qofku inuu carabkiisii ilaaliyo waa arrin muhiima. saan wada garanayna qofku markuu dadka isku diraya uu namaamka noqonayo carabkii bay ka dhacaysaa. waxaa lamida inuu soo qoro oo uu laba bulsho isku diro, laba gobol isku diro, laba qabiil isku diro, laba urur isku diro yaa lamida. marka qofka asaga ahaa qoraalkaa uu soo qorayo dee namaan buu noqonayaa, ama uu shakhsiyaad si gaara wax uga sheego, shakhsiyaadba si gooniya u ataago. kulli waxa weeye waxay noqonaysaa xanti bay soo geli. tan qoraalku marka iyadu way kasii xeel dheer tahay. waxaa lamida tv-gan haddaan fadhino oo kaleeto asta lamida oo qofku inuu meel gooniya intuu qof la galo oo hadal ku dhaha xan ah ama uu laba qof si gooniya iyadoon la arkaynin iskoogu diro iyo almujaahara bilmacaasi way kala bedelan yihiin. maxaa udgoonuhu caleyhi afdal salaatu wasalaam wuxuu yihi kullu ummatii mucaafa ila almujaahiruun. ummadda iyada oo dhan waa la cafiyayaa, waa macfi kuwa macsiyada la jahra mooyeen. macsiyada qofka la jahraya marka wuxuu noqonayaa qofka soo qoraya oo khalaa'iqdu ay akhriyayaan ama tv idaacada la soo fadhiisanaya oo jamaahiir ay dhegeysanayaan xumaanta uu ninkaasu wado ayaa lamida. yacni faaxishada nasku ha ku soo arooro, laakiin qofku xumaan kasta uu la jahro min dimnihaa bay gelaysaa. hadduu qofku masalan uu faaxisho la jahro oo uu yidhaahdo anu waxaasaan sameeyo in hebel baan waxaa ku sameeyey uu yidhaahdo dee dembigii mujaaharadu gelayaa. waxaa lamid a iyaduna haddii qofkii uu fitnada qabaailka iyo ururada iyo deegaanada iyo isaguna uu dadkii la dhex yimaado, caydiibaa iyaduna lamida oo uu la jahrayo. marka qofkii suu mawduuca markuu galo, xataa hadda culimada mucaasiriinta ah ile mashaa-isha nawaasila dhahaa jirta oo waxaa jira masaa-il markasta cusub oo fii qadiimi zamaan aan jiri jirin. oo masalan fiqigu wuxuu ka jiray qofkii qof xantaa, qofkii dad meel jooga hadal beena u sheega, dad iyo dad kale isku dira wahaakada. laakiin qofkii tv ka hadla ama idaacad ka hadla ama facebook wax ku qora waa hawl cusub weeye. hadda marka waxay dhaheen toobada waxaa kamid a qofku meeshii waxaan kusoo qoray inuu toobadiina kusoo qoro. masalan tv-gaad ka tidhi ereygaas waa inaad tv-gii mar labaad ka saxdo. waxaad ku soo qortay facebooka dembiga intaa dhan waa inaad facebooka haddana mar labaad uu qofkii qoraalkii kusoo sameeyo oo ku muujinayo in qoraalkiisii hore uu khalad ahaa, ilaahayna uga toobad keenay subxaanahu watacaala, inuunu ku noqonin uu go-aansaday iyo wixii lamid a. marka dhibka bulshada la dhibayo ama carab lagu dhibayo ama gacan lagu dhibayo intaas oo wuxuu yeelanayaa qaybood iyo intaasoo anwaac. kullina waxay u baahan yihiin in dadku ay ka taxadaraan. maxaa weeye arrintu waa aakhiradaadi, inta waa aakhiratak wey. aakhiradaadi bay lugta la gelaysaa, adduunyadaadi bay lugta la gelaysaa. maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. waa hawl qoran weeye. waxaa kaloo idna jirta dadkaas kale akhdhaada ka dhacaysa iyo cawraadkooda inaad tatabucdaa iyaduna qasab ma aha. maxaa yeelay dadka cawraadkooda haddaad tatabucdo yacni man tatabaca annaasa maa tahaman, murugu u dhimanaya qofkii dadka cawraadkooda tatabuca laguma dirsanin. malaa'ig baa qoraysa wixii dembi ay galaan, hadday bulshada ka galaan iyo haddayna ka gelin, ilaa dee hay-aadka loogu talagalay ee bulshadu ay leedahay ee loogu talagalay inay la xisaabtamaan dadka xilalka u haya iyo kuwii lamidkeeda shaqay ummadda u hayaan. laakiin waxaan ka hadlayaa caamata naas hawl u taalla ma aha inay dadkii maaragtay waxayna welibana aysan hubin inay wax kaga sheegaan. waxaysan hubin wax kaga sheegaan ma aha. hal qof waxaa rabaa warka marka hore inuu hubsado. yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu, qiraa'akan waxaa leeyahay fatathabatuu. marka qofku waa inuu hubsado weeye oo maaragtay wixii sal gaadho weeye. laakiin si daaisha in wixii loo tanaawulo oo qof kastaa warkii u maqlo uu la boodo oo qof kastaa wixii u dhaho la iska rumaysto oo qof kastaa si usoo caanbaxo
waxa munkaraad ugu xun uu sameeyo arrin loo baahan yahay maaha waa arrimaha u baahan bulshadeenu inay ku baraarugto ay ka gaabsato dadka naarta waxaa loogu tuurayaa ilaa xasaaidu alsinatihim ha saxaaba weydiiyey dakirati ummaku ku yiri ma dadka wax ka naarta loogu tuuraya ilaa xasaaidu alsinatihim sida wallahu daawadayaal barnaamijkeennii caawa diinta iyo nolosha intaas ayuu inoo ku eegyahay waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay aniga oo ah cabdilcasiis saciid xasan intaan ku kulmi doono barnaamij lamida waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu